maanta ay taariikhdu tahay August 6 maalintu ay tahay Sabti waxaan noo qabsoomay shirkii golaha waxaana wasaaraddu shaqadu ku lahayd ajenda qodob la xiriira maalmaha iyo waqtiga shaqada oo golahu la wadaagay soo jeedinta wax ka bedelka maalmaha shaqada ee golahu wuxuu nala qaatay in laga dhigo maalmaha shaqada 5 beri oo ay fasax yihiin shaqaalaha maalinta Jimcaha iyo maalinta Sabtiga wuxuuna dhaqan galayaa isbedelkan marka sharciga la ansixiyo sharciga kale ah number 12 iyo kan 65 ka private waxaana xusid mudan in maalinta Khamiista ay tahay maalin si buuxda loo shaqeynayo waxa aynu saacadaha shaqadu noqon doonaan 8 subaxnimo ilaa 4 galabnimo shaqaaluhu waa lagu xisaabtami doonaa waqtiga iyo shaqada ay qabanayaan waxaa si gaar ah loo tixgelinayaa hay'adaha bixiya adeega laga maarmaanka sida dekedaha garoomada diyaaradaha immigrationka caafimaadka iyo kastamada iyagoo aan waxba iska bedelin shaqadoodii wabillahi tawfiiq wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh